wuxuu yiri xayow faaraxow hada rag waa loo xutubiyaa in xishood leebanahay haddaan la isxastiyahay xabiib baan ahaa jeer kufriga leegu xaasiday adna xaashibaad ila timid xaakim soo diray xadigii adduunyada haddaad xoolo iga doonay marna anuu kaamaan xasdeen xalaad leedahay inaan ku xafgooyaan jeclaa geel xawaar badan kuma yaal xawaadan lahaa xawd u sii mariya markaad xiin fariin damacday baan ka xanuunsaday walaalow xogdiga qaarkii waa lagu xujoobayaa waxaan ku xutubiyaana waxuuradaan nahay xigta iyo qaraabiyo hadii xididii weydiistay xayu iyo qayuumay hadii la igu xoodaansho xubigayga kuma hayn inaan xiisow bixiyaa xamar weeyo oo midab fardood kala xariir hoonay xawaariye durdureeye kaliyo xawli iyo jeeftan xaqi loo eriyo waa gamaan xulashadeedii iyo xubna toosan oo neefku waa xaalad gooni ee goortan xusuus ula noqdaa xiisa ii qabana waxaan xarafka diinad ah igaga xeeldheer xarbiga jihaadkan lahaa xoogsi ugu fuulo meeshii xeebtan lahaa xita ku eriyoodo xagaaga dhacayaan lahaa xalin u deeyo xuniyaha ku goobaan lahaa gaalka xayl kale oo xaqiiqa maqnaabaan lahaa xaq ugu raacday iyo xujay reebta reehagar anoon xabashidii hoobin xinjirtooda dhiiga haddaan lagu xaraaraysan xaaqa maquuqiyo haddaan xaaluf laga yeelin xidaysana ma dhiibeen anoon xaaladee bogana xaaraamay baarada xuli abidkiisa waxunbay xushilayaan sida xabashi iyo door iminkana anoo xaajiya baan xinif awoodayna inta aniga lay xaman lahaa xiliga soo meeriyo waa xiin fariin neefka aad xariga haysta ee xawayaanka oo idil naftay kala xiroodaane xarigiisa qabo aadmi kale kuma xushmeeyeen